teacher training program qaybtii principles of education waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ustaad Xuseen Axmed Salaad. maanta waxaan qaadanaynaa erayo la xiriira education-ka ama terminologies la xiriira education-ka. erayadaas waxay noqonayaan maxaa ka dhaxeeya education and pedagogy iyo education and assignment. waa xalaqadii saddexaad dhageysi wanaagsan. waxaan ku hormaraynaa pedagogy and education. inta badan waxaad aragtaa erayga pedagogy and education ayagoo wada socda ama kala socda. haddaba ma isweydiisay maxaa xiriir oo ka dhaxeeya, maxaa kala duwanaana oo ka dhaxaysa? kala duwanaanta intaanan gelin ka hor waxaan rabaa erayga pedagogy, erayga education shaladii horaan soo sharaxnay, macnihiisa waa la fahmay. erayga pedagogy muxuu yahay? erayga pedagogy asalkiisu ama ishtiqaaqiisu wuxuu ka yimid Yunaan, Greek. waagii hore marka waxaa loo aqoon jiray pedagogy qofka u xil saaran kormeeridda iyo la socoshada ilmaha dhammaan activities kala duwan. qofkaas oo ilmaha iskuulka u wada, haddii ay ciyaarayaan ciyaartaas orientation ka siiya, kormeera, la jooga. waxay ahaydaan la yidhaha xilligaas marka muhiimatul cabiid ama shaqada dadka slaverska addoonta ah ay lahaayeen oo dadkaas Greek-ah ay ku shaqaysan jireen. laakiin wax badan ka bacdi waxay qaadatay itijaah kale, waxay noqotay nadariya tarbawiya saa'ida, waxay noqotay falsafo tarbiyadeed ama education oo markaas aad u qabsatay adduunka. ka bacdi waxay soo gashay fi at-tarbiya al-haditha ama modern education field, waxa la yiraahdaa xayndaabka barbaarinta casriga ah ayay soo dhex gashay. eraygaas marka macnihiisii uu ka soo tegay macno kale ayuu qaatay. waxaa marka si kooban aan kugu soo koobi karaa, horta intaadan si aadan u wareerin. pedagogy markii la yiraahdo waa culumta tarbiyada. at-tarbiyana waa tarbiya moogta. marka waxay kala yihiin education and education science. sida aan meeshaan marka ku aragto, the difference between education and pedagogy is that pedagogy, according to the most its definitions, is theoretical research, while education is a practice and application. education-ku waxaa la yiraahdaa waa afcaal ama waa actions ay sameynayaan waalidiinta, macallimiinta si joogto ah. waa dhaqangelin, waxyaabo la dhaqangelinayo iyo practico iyo ficilo la sameynayo. laakiin ficiladaas wixii hagayay oo siyaasadda lagu dhaqangelinayo iyo siyaasadda ay ku soconayeen iyo theories-ka ay ku dhaqaaqayeen sameynayay ayaa pedagogy ah. pedagogy marka bimacna al-kalima muxuu noqonayaa cilmu tarbiya. tarbiyada ama education-ka cilmigii lagu hagi lahaa oo lagu wadi lahaa ayaa pedagogy la yiraahdaa. nadariyaad cusub oo waxaa jira pedagogy-ga ka sii qaaday halkaas oo yiri pedagogy-ga waxay gaar u tahay waa hagidda iyo barbaarinta ilmaha kaliya wax gaar u ah. laakiin haddii dhinacaas la eego isla meeshin joognaaho inta badan tarbiyada waxa centerka u ah oo ay ku dhacayso oo ayada dhanba loo asaangareeyay macallimiinta inay ku fuliyaan waa ilmaha iyo xilliga ay ku jiraan da'da ee loogu talagalay education-ka ama barbaarinta inay qaataan. marka warkii oo kooban waxaan leenahay pedagogy waa cilmigii tarbiyada. tarbiyaduna waa actionskii iyo activitieski ay sameynayeen teacherskii, parentskii, waalidiintii iyo all involved to the education. waxa ku lugta leh education oo dhan ay sameynayeen. waxaa la yiraahdaa waa nadariyo hagaysa alxayaat tarbawiya. waa theory oo siinaya guidance waxa la yiraahdo education systemka ama nidaamka education-ka oo markaas jiro siinaysa. marka waxaa dadka qaar ay yiraahdaan education ma jiri karo without pedagogy. ma jiri karo. sidaas marka ayaa horta aan u kala saarnay pedagogy and education. labadubana waa laba qadiyadood oo muhiim ah. musdalaxaad daa'iman markaad ku jirto fieldiga waxbarashada kugu soo laalaabanayo waa inaad kala fahamsantahay marka muhiimadeeda ay leedahay.
waxaan u gudbaynaa marka qaybta xigta oo ah education and enseignement. ergan enseignement asalkiisu waxa la yiraahdaa Faransa oo kasoo tarjuma Faransiya waa asalkiisu waa tacliim meesha aan ka dhahnaa. waxaa laga yaabaa qolada Ingiriiska markii at-tarbiya oo tacliim ay kala saarayaan inay dhahaan education and instruction, meelaha qaar inay dhahaan teaching. anyhow eragu waa labadaas eray waxaan kala saaraynaa hadda. education marka muxuu yahay? waa at-tarbiya. ergan enseignementina maxaa waaye? waa at-tacliim. labadan eray maxaa farqiyo ka dhaxeeya? sideen u kala saaraynaa? casharka qaybtan intaas aan focus ku saari doonaa hadii la idmo. marka marka la soo koobo tacliim ama tarbiyo dadka qaar isku sii u tahay laakiin way kala duwan tahay. at-tarbiya waa nidaam weyn oo mutakaamil ah, integrated system ah or related to all aspects of the person, dhinacyada qofka oo dhan la xiriira waa. Education is a process of integrated development of all the forces and properties of the individual. dhammaan qofka awoodaha iyo astaamaha khasaa'ista characteristics-ka uu leeyahay oo dhan ayaa la barbaarinayaa. baynama enseignement-igu uu yahay part of the educational process oo related ku ah dhinaca earning knowledge and skills, xirfado markaas uu qofku daily life-ka uga baahan yahay, iyo knowledge ama aqoon yar oo kooban oo meel ku saabsan in uu qofku markaas qabto ujeedkeedu uu yahay. marka education waa is larger than enseignement. warka kooban education-ku wuu ka ballaaran yahay enseignement-ga, ama at-tarbiya acam awsac min at-tacliim. tacliimtii way ka ballaaran tahay, wax badan ay ka ballaaran tahay. marka tacliimtu waxay noqonaysaa wax yar oo ka mid ah education-ka ayay noqonaysaa. marka way ka ballaaran tahay ayadana sidaas ayaan u kala saarnay. waxaan sameynaynaa marka summary inaan kusoo sameeyo. mawduuceenu maanta wuxuu ahaa laba mawduuc oo ah pedagogy and education. maxaa u dhexeeya? pedagogy waa cilmu tarbiya, educationna waa actions and applications, waa falal iyo dhaqangelin la xiriirta education-ka in all aspects, dhinacyadeeda oo dhan. erayga pedagogy markiisii hore waa Yunaan, macnihiisu wuxuu ahaa shakhs ama qof ilmaha gacanta qabta activitieska marka ay sameynayaan, markay ciyaarayaan, markay iskuulka aadayaan, markay physical exercise-ka sameynayaan, waxyaabahaas. laakiin wuxuu sameeyey evolution. eraygu waa soo tadawur soo sameeyey, waa ilaa macnahan uu ka qaatay. education and enseignement ama at-tarbiya wa tacliim ayagana farqigooda muxuu yahay? tarbiya waa nidaam mutakaamil ama waa a process of integrated development, tanmiya shaamila wax la yiraahdo oo dhan qofka awoodihiisa iyo khasaa'istiisa iyo dhinac kasta laga kobcinayo. enseignement-na maxaa waa as a part of the education, dhinaca wuxuu la xiriiraa iktisaab al-macrifa. sidaas darteed waxaa la yiraahdaa madaarista oo Jabaanka oo kale ilmaha ilaa ay afraad gaaraan lama imtixaano, because macrifo ma baranayaan. xilligaas waa xilligii education-ka waa waxay baranayaan values-kii, qiyamkii, qofka soo ula noolaa lahaa, dhinacyo badan ayaa laga kobcinayaa. laakiin tacliimtii markii la gaaro qofka asoo dhisan oo dhinacyadii kale oo dhan ka dhisan ayuu tacliimtii soo gaaraya. tacliimtii markuu soo gaaro, tacliimtu waxay la macaamilaysaa dhinacii macrifada iyo mahaaraadka markaas daruuriga u ah lilxayaat alyawmiya ama nolosha daily life-ka ah maalinlaha. marka intaas aan xalaqadan kusoo koobno oo aan ku kala saarnay terminology-gaas la xiriira waxbarashada ama barbaarinta. waana xalaqadii saddexaad ee barnaamijkeenii teacher training program qaybtii principles of education. waa mahadsantihiin.